halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa VOA Washington. markana ku soo dhawaada warbixin baarisa oo gaara waxaa noo diyaariyay Haaruun Macruuf. warbixin ay qortay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan miinooyinka ee UNMAS kadib qaraxii sanadkii hore ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa ku talisay in sida ugu waxtarsan ee lagu baajin karo inay magaalada Muqdisho u soo dusaan baabuurta sida qaraxyada culus ay tahay in marka horeba laga hortago samayntooda. laakiin maadaama aysan taasi mar walba suurtogeli karin gaar ahaan xilligan waxay warbixintu ku talisay in muddada dhow la kordhiyo dhismaha difaacyo ka duwan magaalada baabuurtaasi waxayna sheegtay in arrintaasi laba siyaabood lagu gaari karo. waa tan hore in cirifyada magaalada laga dhiso baro kontarool oo waaweyn oo qalabaysan oo ay shardi tahay in baabuurta culus iyo kuwa yarba ay maraan kuna nagaadaan saacado laguna baadho iyadoo la adeegsanayo qalabkii baadhista. waxay sheegtay warbixinta in muddada ay baabuurta halkaasi ku sugan yihiin ay baadhitaan samayn karaan ciidamada amniga ee tababaran iyo ayada wax urisa. waxay kaloo ku talisay in la diyaariyo wixii la isaga difaaci lahaa haddii baabuur uu qarax saaran yahay u suurto gasho inuu soo jiiro bartaasi sida dhacday bishii Oktoobar 14 sanadkii hore markaasoo baabuur xoog ku soo jiray bar kontarool uu isku qarxiyey iskoyska Zoobe kuna laayay boqolaal qof. laakiin 7 bilood kadib markii uu dhacay qaraxaasi baraha kontaroolada ee laga soo galo magaalada Muqdisho ma yaalaan qalabkii ay warbixintu ku talisay iyo ciidankii tababarnaa. dowladda Soomaaliya waxay ciidamo dhigeen goobo badan oo magaalada daafaheeda iyo dhexdeeda. tusaale ahaan waxaa baro kontarool oo amni ay ka sameeyeen Dharkeynley, degmada Kaxda, jidka Sodonka, warshadaha, Galgalato iyo Ex Control Balcad. hase yeeshee dowladdu waxay ku guuldareysatay inay goobahaasi dhigaan qalabkii lagu ogaan lahaa in baabuur uu ku rakiban yahay qarax iyo in kale. sidoo kale waxaan la geynin eeda wax uruse ee loo tababaray inay soo saaraan meesha uu qaraxu ku jiro. sidaasi waxaa barnaamijka galka baarista uu ka xaqiijiyey saraakiil iyo ciidan ka howlgala baraha kontaroolada ugu waaweyn ee magaalada laga soo galo. waxay ii sheegeen saraakiisha iyo ciidanku in farsamada ugu wanaagsan ee adeegsadaan ay tahay in baabuurka ay ka shakiyaan laga dejiya rarka sida haddii ay wadaan khudaar ama xamuul kale kadibna la baadho. mid ka mid a ayaa igu yidhi waa qofka baadhaya gacantiisa iyo ishiisu waxa ay qabtaan. mas-uuliyiinta dhinaca siyaasadda ee Soomaaliya waxay ku adkaysteen in ciidan tababaran jiraan qalabna ay haystaan. hase yeeshee markii aan weydiinay qalabka ay haystaan nooca uu yahay iyo heerka tababarka waxay qirayaan inuusan ahayn mid ku filan oo tayo leh ama maba jiro. maxamed ismaaciil cabdulaahi waa guddoomiyaha degmada Kaxda oo ay ku yaalaan baro kontarool oo laga soo galo magaalada Muqdisho gaar ahaan barta kontarool ee ugu weyn oo ah tan ku taala siinka dheer. arrintaasi way jirtaa arrintaasi qalab muhiim ah oo waxbaadhay ugu yaala siinka dheer si guud haddaad u weydiiso qalab waxbaadhay iyo ciidamo loogu tababaray iyo ciidamo waxbaadhaba way jiraan. waa garta waxaan la hadlay saraakiil ciidana iyo kuwa amniga oo jooga siinka dheer waxayna ii sheegeen inaysan haysan qalabkii lagu maaragtay ogaan lahaa qaraxyada iyo eedii oran lahayd qaraxyada inta midna inaysan haysan. waa laga yaabaa baan ku yidhi aniguba inuu wax ka dhiman yahay laakiin waxaa xaqiiqa ah in wax baadhay ay jiraan oo ama ciidamo ha ahaado ama qalab ha ahaado in badanna lagu qabto qalabka maaragtay gaadiidkan magaalada wax lagu yeeleeyo. runtii xaqiiqdii dee dawladdu iyadu wax badanna way ka maaragtay way ka qabatay xagga amniga iyo xagga qalabka wax lagu baadho wax badanna waa u dhiman yahay laakiin waxaa xaqiiqa ah in maaragtay degboynti muhiim oo wax lagu baadho uu yahay siinka dheer. barta kontarool ee labaad ee ugu weyn ee laga soo galo magaalada Muqdisho waxay ku taalaa jidka caasimadda ku xira magaalada Balcad waxaana lagu magacaabaa Maslax waxayna ka tirsan tahay degmada Hurwaa. Cabdixakiin Cumar Cabdulle waa guddoomiyaha Hurwaa. waxaa jira kontaroolo badan oo ugu talagalnay ay degan yihiin ciidamada kontaroolka Maslax oo kala kamid ah oo runtii baabuurta lagu baaro laguna hubiyo si aysan usoo gudbin iyagoo qaraxsida. sidoo kale markay halkaas soo dhaafaan waxaa jira kontarool kale hadda la dhigay Ex Control Balcad isagana lagu xaqiijiyo gawaarida xamuulka ee kuwa kale lamidka ah maadaama aysan jirin qalab casri ah hadda aan ugu talagalnay inaan ku ogaano wax walba laakiin dadaal ay sameeyeen ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee fariisimaha kule degmada Hurwaa waxaa noo suurta gashay inta badan in aan sugno amniga anagoo kaashanayno dadka shacabka ah. waa garta marka qalab casri ma haysataan ee culays ku xusaaran yahay un ciidanka meesha jooga ee amniga. qalabyada hadda aan haysano kalley qalabyada Afrika waxay isticmaasho qalabyo kamid ah isticmaalna adduumaadka kale sida wadamadan aad joogtaan oo kale tumaha laakiin anaga Afrika ahaan waxaan aaminsanahay inaan isku filanahay inta badan oo hadda degmadaas intii aan ugu talagalnay ku ogaa karno inaan kaga hortagno qaraxyada wax noocaasa. marka ma bir ay askartu qaadaan ay hoos geliyaanba mise waa checkpoint ama bar la dhisay oo baabuurku dhex marayo oo qalabkii uu wada sawirayo wuxuu baabuur ku jiro. maya bir hadda qalab sawiraysan maan adag laakiin waxaa jira
qalabyo gacanta ay ku wataan ciidamada iyo kuwa baabuurta lagu baaro wax noocaas baan isticmaalnaa inta badan iyo kuwo kale fara badan. haddaba maxay yihiin qalabka iyo agabka lagu ogaan karo qaraxyada waa kuwa ay dowladda soomaaliya soo iibsan kartay goor hore maadaama muhiimadda koowaad ee miisaaniyadda waddanka ay muddo dheer ahayd amniga kharashka ugu badan oo ku baxo dhinaca amniga waxaa kaloo dowladdu ay ka codsan kartay dowladaha taageera inay ugu deeqaan mana aha kuwo qaali ah oo u baahan dhaqaale aad u badan marka loo eego awoodda dowladeed ee xilligan qalabka loo adeegsado baadhista iyo sawirka waxyaabaha ku jira baabuurta waxay isugu jiri karaan kuwo saaran baabuur oo hadbageya meeshii looga baahan yahay iyo kuwo lagu rakibo waddooyinka waxayna u baahan yihiin in midkiiba ay ka shaqeeyaan ilaa 6 qof 24 saac waxaana midkiiba uu ku kici karaa $10,000 sida ay noo sheegeen khubaro dhinaca amniga waxaana lagu bixin kari lahaa kharashka lagu yaboohaa in la siiyo dadweynaha soo sheega baabuurta ay ku rakiban yihiin waxyaabaha qarxa khubarada derista al-shabaab waxay isku raacsan yihiin in ururku uu casriyeeyey uuna kordhiyey awoodda qaraxyada ay sameeyaan taasi oo laga arkay tadawurka awoodda qaraxyada al-shabaab sannadihii lasoo dhaafay si la mid ah haddaba kordhinta awoodda qaraxyada al-shabaab waxay sidoo kale marba marka ka dambaysa sii hagaajinayeen xeeladda ay ku qarin karaan qaraxa saaran baabuurta kuna gaadhsiin karaan bartilmaameedka isagoo aan qarxin xareed maxamed cumar waxa uu hore taliyo urur ugu soo ahaan jiray al-shabaab ka hor intii uusan ka soo goosan waxa uu ii sheegay inay muuqato in al-shabaab ay adeegsanayso xeelad u fududaysa inaan ciidamada amniga ee ku sugan baraha kontaroolada aysan ogaanin meesha qaraxu uga jira baabuurta sidee ayay haddaba taasi ugu suurto gashaa sagxaddii oo baabuurka sagxad kale ka korsameynaya sagxaddaas iyo labada dhexdood waxyaabaha qarxaantiya ku buuxiyaan markii iyo albaab yar oo fareem yar u samaynayaan baabuurka marka ama moos baa lagu soo rari ama waxaa lagu soo raray ari oo kale baabuurka marka waa sagxad caadi ah hoosna waxa qarxaa ka buuxa marka waa laba sagxadood sagxadta hoose waa jirtaa waa guri dabaqa camal oo kale wey ma garat labada sagxadood dhexdooda marka waxyaabaha qarxay ka buuxinayaan marka qaraxu sagxadda hoose iyo dhinacyadaba muu ku jiraa kuwa saasay ku sameeyaan dhinacyada dhan way miinaynayaan waxba maaragtay wax ka dhiman ma gaarigiisa magaranaysa maaragtay waxyaabaha qarxo dhan bay ku hagaajiyaan oo magaranaysa maaragtay saada maxmadahan artifaceka kuwa oobiyaan waxaasoo dhan ba lagu waxeynaya waa garta oo dhib badan uu sii geysto oo dee xabadii markii qarxado mid kale sii qarxayso oomada cari ilahay dhan markii inay laakiin farsamada al-shabaab kuma eka qarinta xamuulka qaraxa ah ee saaran baabuurta keliya balse waxay sidoo kale kor u qaadeen farsamada aaladda lagu gaarsiin lahaa qaraxyada goobta bartilmaameedka aaladdaasi oo ah baabuurta xubnaha hore uga tirsanaan jiray al-shabaab waxay ii sheegeen in muddo ahba al-shabaab ay ku howlanaayeen inay baabuurta ka dhigaan mid u adkaysta ama iska moosa rasaasta ay ku soo ridaan askarta joogta baraha kontaroolada ama kuwa waardeeya dhismayaasha waxayna farsameeyeen baabuur lagu hakin karo dhagxaanta waaweyn ama qori baasuuka ah ama hub kale oo culus inta uusan gaadhin bartilmaameedka hase yeeshee dhagxaantaasi iyo qoryahaasi ma aha kuwo mar walba yaalla baraha kontaroolada ama afaafka dhismo kasta oo ay bartilmaameedsanayaan siday al-shabaab u farsameeyeen baabuurtan waxaa galka baarista uga warramay maxamed xasan aadan sandheere oo hore uga tirsanaa ururka al-shabaab una qaabilsanaa dhinaca baabuurta baabuurkan lagu soo rakibayo waxyaabahan qarxa birahan inay qarxaan ee dadka dilan loogu talagalay moogiye ma waxaa la geliyaa biro ka ilaaliya xabadda haddii lagu soo rido baabuurta maarata sida hadda kuwa xabadda kuwa galaya oo kale xerooyinka waa ii sharax naqshadaas naqshada marka waxaa waaye baabuurka hadda hoomeyda oo kale koraasa dhex taala koraasa laga furfuraa sida baabuurka uu u samaysan yahay ayaa birahana loo jarjaraa qof mitirkiisa u haystaa moolooyinkiyaa meesha yaalla motooraa la kicinaa mooladaadi marka bereeska doobi bereeska ka gashanaysaa moolada wax lagu jira waxbaad ku jarjaraysaa birta waa bir adag baabuurka marka hoomeyda sida ay u samaysan tahay ayaa biraha loogu dhedhejinaa kor ma ah marka waa gudaha waa garta meesha laga dhejinayo baabuurkii kor markaad ka aragto waa hoomey gudihiisa markaad gashana waa baabuur beeba ah beebaha xabadda aysan karin birta beeba ah maaragtay naqshadaas marka lasoo koobeynaya ana lafteeda fikir ahaan dad baa keenay saraakiil ahaay laakiin dadka ugu horreeyey oo boroobeeyey oo birahaasi soo sameeyey oo maaragta qoryaha zuugaga hataa oo kala gaashaama oo qofka gaandheeriga hortiisa in loo sameeyo qoryaal aan usoo sameynay deriska ugu horreeyey naqshada dadka wax ka bixinayaan kamid ahay waa garta marka birahan waxaa loogu dhejinayaa qofka inay ka celiyaan haddii xabad lagu soo rido soo ma qofka marka biraha waa looga dhejinaya qofka inuu isku kalsoonaado xabadda aka reekiamka hataa maaragta dhashiitaha inay soo buusto maahane annagaa ku baroobeynay aka aniga gacanteedaan ugu baroobeeyey reekiamka anaa ku baroobeeyey
dhashiikaha laakiinse anan goobjoog uma ahayn, laakiin waxay ii sheegeen dhashiikaha inay kasoo dhexbaxday, laakiinse dhinac kale aysan ula dhicino soo buustay afkiisa hore le saas u soo baxay. markuu qarxo berihii loogu talagalay inay celiyaan rasaasta soo celin maayaan qaraxiina inuu baxo banaanka u baxo maysan celinayn? qaraxa haaruun qarax waa mid walba inta loogu talagalay, kan hataa jidka la gelinayo waa ama muwaajaha ha ahaado jidka dhinaciisa hala dhigo ama dhulka hoostiisa hala dhigee, horta qaraxa hadba sidii loogu talagalo haddii la rabana gebigiisaba dhinac ayaa loo xoojin karaa. marka gaarigan meesha soo galaya ma aha gaarigan markuu qarxo dhinac kasta hataa inuu baxay 70% waxaa la xoojinaa meesha ninka uu ku wajahnaa oo xarada maadaama ninkan laga yaabo hataa in asagoo 10 talaab 20 talaab dhufaysidii uu soo jiro dentaal lala helo si hadduu qarxo qaraxi saameyntiisa ugu badan maarata hor uga baxdo 70% hor waaye 15 dhinacyada 25 gadaala laga dhigaa. horta wax la xukumayo waaye qaraxa oo dhinac loo jeedinayo. waxa meesha la saarayana waa wax qiyaasan 100 kiilo 50 kiilo 30 kiilo iyadoo hal jirgaan oo kale ah oo 5 kiilo ama 7 kiilo ah ayaa baabuurtu waxaan xabad karin haddii loo dhigo kala gooyo. marka ma wareebayso oo wax loogu talagalay oo naqaskaas meesha ka baxaya sidii la rabay. marka wax la soo baroobaynayo waaye waxaan ma ahana wax inta la soo sameeyay ka keenayo maaha. baroobadooda meesha ugu dambeysay oo hadafkii loo rabay baroobo kuma imaanayaan, ayagoo baroobaysan oo tijaabaysan oo laisku hubo oo dhowr mar lasoo tijaabiyey ayay meesha ayay keenaan. laba jeeraba dhagaxa iyo baasuukuhu midkoodna ma baajinayo qaraxa, balse waxaa laga yaabaa inuu baabuurka ku qarxo meel aan ahayn bartilmaameedkii. taasi laftigeedu kama dhigna inay dadku ka badbaadayaan, sababtoo ah baabuurkii ugu dhimashada badnaa oo ahaa kii ku qarxay Zoobe waxaa la aaminsan yahay in bartilmaameedkiisu uusan ahayn goobta uu ku qarxay. waana taasi sababta ay muhiimka u tahay in baabuurta lagu joojiyo marka horeba bannaanka magaalada laguna baadho. tababarka iyo qalabka baadhista baabuurtu waa kuwa ay la socdaan madaxda amniga ee waddanka ee xilligan jooga. agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda cabdulaahi maxamed cali sambaloolshe waxa uu leeyahay magaalada muqdisho waa ay fiday, amnigeedana meel keliya lagama maamuli karo. waxaa loo baahan yahay ayuu yidhi maalgashi dhinaca teknolojiyada ah iyo shaqaalaha oo la tababaro lana abaal mariyo. meeshaan muqdisho horta dee ex control ama meesha la yidhaahdo snoopta lagama controli karo. waxay tahay magaaladu markii dawladdii dhacday wixii ka dambeeyey si qeyro caadihay dhinacyo fara badan ay u korortay. waxaa la rabaa marka shabeellada hoose khaasatan afgooye iyo meesha la yidhaahdo lafoole iyo siinka dheer dhinacan jaziira, horta waxaa la rabaa bar controlyo fara badan in la dhigo. qalab sahlaya in baabuurta qaraxa wada identify garay karta ama sheegi karana la geeyo meeshaas oo adduunku aad arkaysa oo buundooyin la hoos maraa x-rays ah ama raajooyin ah la hormaraa ama waxa eeyahan isheeg sniff dogs waxa la leeyahay oo kale meelahaas la geeyo ama checkpointyada la farabadiyo ama gaadiidka soo galaya hab lagu controlo markay ay soo istaagaan afgooyo inta lasoo escort gareeyo meesha kale tii tagaan la geenaayo ama yani baaritaan fara badan iyo qalab fara badan iyo waxay u baahan yihiin control fara badan. marka waxaas la hagaajiyo infiltrationka ama dadka ciidamada shabaabka dhex galaya laga sifeeyo, habka wax loo fulinayo la hagaajiyo, isla xisaabtan uu jiro, dadkii wax qabta la abaal mariyo, feejignaan ay jirto, shabaabka dhexdiisa lafteedana lagu yeesho ii sheeg maxaan ku dhahaa dad xogta keenta. yani waxyaabo fara badan ay u baahan tahay, laakiin de waxaasoo dhan asaas wax ka ah xis amni inuu jiro, qorshe amni inuu jiro, siyaasad amni oo dawladdan ay leedahay oo sustainable oo waari karan inuu jiro. dowladda Soomaaliya waxay dhawaan dhistay ciidan ay ugu tala gashay inay amniga sugaan, hase yeeshee dhibkuma waxa uu ka taagan yahay ciidan la'aan, mise waxaan jirin qalabkii casriga ahaa ee lagu joojin lahaa qaraxyada ama looga hortagi lahaa. sida ogaaday barnaamijkan galka baarista waxaa kale oo jira qaladaad ay weli samaynayaan ciidamada amniga iyo madaxdooda, waxaana ka mid ah in weli damiin ay ku sii daynayaan baabuurta qaarkood. baabuurkii Oktoobar 14-keedii ku qarxay iskoyska Zoobe oo ay ku dhinteen 587 qof waxaa kontaroolka siinka dheer uu ku soo dhaafay damiin, waxaana muuqata in dhaqanka iyo wejigarashadu ay weli ka muhiimsan yihiin waajibka sharci iyo gudashada mas-uuliyadda shaqada. guddoomiyaha degmada Kaxda Maxamed Ismaaciil Cabdulaahi ayaan weydiiyey sababta ay weli u sii socoto in baabuurta lagu sii daayo damiin. xaqiiqdii dabcan marba wixii la sameeyo wixii ama faa'iido ka yimaada ama khasaare ka yimaada haddana dawladdu yani muraajaca dambe iyo xisaab dambe dib uga samaysaa. marka waa laga gaadhay runtii oo haddii uu baabuurkaasi isqarxiyey dadkii dameenka ka ahaa iyo dadkii lahaa intaba dee dawladdu waa tii uunay gacanta ku dhigtay, waana cashir baana laga baran karaa mar walba wixii lasoo mara cashir baa laga bartaa. laakiin waxaa xaqiiqo ah
in faa'iido badan laga gaadhay baabuurkan meesha uu ka yimid iyo damaanadiisa iyo meesha uu u socday iyo meesha uu ka yimid intaba waa guul weyn oo laga gaadhay baan odhan karaa arrintaasi marka wax weyn bay usoo kordhisay shacabka soomaaliyeed iyo dawladdaba damaanadaa la sameeyey ee gaadiidka maaragtay loo sameeyey maxaa yeelay mar haddii meel walba oo shacabka uu ka adeeganaya uu dhex galay ay arrintani dhex gashay lagama maarmaan bay noqotay in adeegii bulshaduna uu socdo damaanad xoog badanna loo sameeyo marka mar walba damaanadu inay lagama maarmaan tahay bay dawladdu u aragtay wayna samaysay wax badan oo natiijaana waa laga gaadhay guddoomiye damaanadda marka laga daba tegayo waa mar uu baabuurku isqarxiyey waa mar dad rayida ay ku dhinteen waa mar dad ama hay-ado ama laamo amniga ay dhibaata ka soo gaadhay baabuurka marka ka dabateg ka horteg soo kama fiicna waa mahadsan tahay waa dabateg ka horteg baa ka fiican mar walba laakiin haddana adiga waktiga wax dhacayo dee caalamqaymatiida ma ogid laakiin waktiguu wax dhaco inaan waktigii meeshii lagu odhan jiray wuu isqarxiyo lama yaqaano laakiin wuu isqarxiyo waa la yaqaanaayo meeshaasu ku raadleeyo ninka noocaasiya noocaasa iskale ninka noocaasiya noocaasa damintay bay kasii wanaagsan tahay. bishii febraayo ee sanadkii aynu soo dhaafnay maalmo uun kadib markii xilka loo doortay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu cisbitaalka madiine ku booqday qaar ka mida dadkii ku dhaawacmay qarax ka dhacay suuqa madiine oo ay ku dhinteen ku dhowaad 40 qof waxaana khudbaddii uu halkaasi ka jeediyey ku jiray hadalladan qofka noo soo sheegay informationka ama na soo wacyigeliya oo noo sheega meeshay wax ka jiraan iyo baabuurtaas waxaan u ballan qaadayaa haddaad maqlaysaan $100,000 baabuurkii naloo sheego inuu wado qarax maxaa yeele waxaan rabnaa inaan badbaadino shacabkan soomaaliyeed oo dhibaataysan qof walba oo information noo keena baabuurtaas qarxayo qaraxa wada intuusan qarxin waxaan ballan qaadayaa inaan siino abaalgudkaasaan sheegay inaan siino ilaa haatan dowladda soomaaliya waxay sheegtay inay fashilisay baabuur badan iyagoo ammaanay ciidamada amniga iyo shacabka laakiin ma jirto cid abaalmarinta uu sheegay madaxweynuhu lagu siiyey soo sheegista baabuurta qaraxyada haddii ay jirtana xogtaasi ma aha mid lala wadaagay warbaahinta iyo dadweynaha si loo dhiirigeliyo in dad kale tallaabadaasi ku daydaan haddii ay jirto oo ay dhabtahay inay dadweynuhu ay soo sheegeen baabuur sida qaraxyo ma dowladda ayaa ku guuldarraysatay inay oofiso ballanqaadkii la sameeyey mase lagu macnayn karaa in dowladdu aysan u arkin muhiim wadaagista xogtaasi ama in dadka la siiyo abaalmarinta waa haddiiba ay jirtee si aannu jawaabo ugu helo su'aalahan iyo tallaabooyinka ay dowladdu kaga hortegayso baabuurta sida qaraxyada waxaannu xiriir la samaynay wasiirka amniga iyo taliyaha booliiska ee gobolka banaadir oo labaduba diiday inay ka qayb galaan barnaamijkan waxaa kaloo aannu la xiriirnay taliyaha booliiska soomaaliya iyo agaasimaha nabad sugidda oo ay noo suurtogeli weysay inaan ku helno khadka telefoonka barnaamijkii galka baarista iyo haaruun macruuf aanu intaasi ku dhaafno.